dadka halkan degan ayaa dhaqanayay xoolaha boqolaal sano wax ka badan balse dadka qaar ayaa leh adhigii hadda wuu sii yaraanayaa dhowr sababood darteed waxaa ka mid ah dadka dhalinyarta ah ma jecla in ay noqdaan xoolo dhaqato inawada ina mariya wax badan aynu ku ogaano banka loo yaqaano xaguuga iyo agagaarka magaalada Gaashamo. Here the people have been raising sheep for over 1,000 years. The people are raising fewer sheep for several reasons. Younger people are not interested in being shepherds. Climate change is making it harder to get food and water for the sheep sometimes. Haddaba safarkeena waxaynu ka bilaabi doonaa magaalada Sheekh inagoo ka qadayn doonaa isla markaana ku xigsiin doonaa magaalada Burco ku hakan doonaa kabacdi hore u sii dhaafi doonaa dhul qurux badan iyo magaalooyin iyo tuulooyin kala duwan u gudbi doonaa wuxuu ahaa safar aad iyo aad u xiiso badan maalin kale iyo dalxiis waxaan joognaa tuulada loo yaqaan Hudusay halka waxaan naga xiga buurihii Sheekh ee qurux badnaa meherad badan ka soo jeeda wadaalo badan bay leedahay mid halkaas shantiina oo xiisayno waxaan doonaynaa maanta inaan soo cunno oo idin tusno anagoo cunayna bariiska ciirta iyo subaga lagu cuno magaalada ama tuulada riyada ee Hudusay aniga iyo Cabdiqani soo gaarnay hotelkii ama restaurantkii wax la yiraahdo Dhalaaliye dhowr jeer baan halkan ka cuntaynay marka insha Allah gaari xagee ma geemaysaa meel garanay السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هيا. والله وصلك. والله وصلك. وحنا نبيك وصل مع لنا. مع الكبرات المصرية. ما شاء الله مع الكبرات مش عارف طوبة. وحنا نسيني ساعة بيسوق له وعير له ما يعرف فرحة. يا في هراء المدرسة والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله عبد القادر سليمان ومملها شركة الدلالية قيبتا هدسا دقمر الشيخ كارهان وضعنا كجعل الدلالية كقريان وحن كسو دولنا إيه كقريان وبيلكا لما هذا أبرني السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله مش صار نقول شغل ناس. ومعمر مع السلام. أنت واحد تحجبنا وقالدي رجع برعو هلك المحل هنا السيروجي سيروجي واو سيروجي برعان شفنا اي صوصع مهرب ظهور استاجنه كل يدد بدنا waxaan daawanaya reer burca oo daafaha dunida ku kala jooga ama ku kala sugan muddo badan ugu dambeysay in dadkeeda hadda waxaan soo gaarnay horaalkii liibaan soo gaarnay liibaan halka degayna walaalkii xageen degayna axmed oo aad leetiin ice cream miskiin ma ka soo dhufana بي شابين دونا ما تترك بين هين شابين عبين marka shaaban doona insha Allah waan dhax marayna magaalada inkastoo in yar joogino oo kasii bixi doono wixii aan aragno intaan ku suganahay insha Allah waan soo gudbin doonaa alloore meel leedahay ayaan raadinaynaa marka meeshii baan garan laanahay iyo Cabdiqani damaha way fogaanayde madam taste li aklat yemniya wadalkana waxa weeyaan يمنين باله مسوا تمين هذا سان كان مت ليش نص عنهم قرر لنا يا
سكتها كل هاد حقنا وعمال الكا عشان مساعد بالعشاء يا وي ساعد ور واو واحد قرن ساعة مسانية سمع ذولا سوي لك سمع هذه حسن فرشنا عشان احمد جيب له غرفة احمد جيب له غرفة وراح يصبر كياه والله انا ما اسكت دعوه مو درس اسكت دعوه مقعد سعيد انا waxa la yiraahdaa Xasan Cabdiraxmaan Malle حسن maxay ma la buux هو قاعدين ما شاء الله ما شاء الله soo dhaweeyna saacid هذول balka maanta maxay dadka kale sanadkan ku xidhan daawada waxa maanta leeyahay Axmed Rashiid ku soo dhaw burco oo alla daawado oo fuluda la badiyo like la badiyo aad oo maasantay هذا هذا حاجه على ربع سيده كلام سيده موها الله ولا waxa weey هاروها وكا شاهي برعان وكنا marka hore waxa la isku dardari jiray لما لاوت انا كلمه بونك ما كسدرت ما شاكريه شاكليه عنيجي لكن مقدم عليه انا صدر والله شاهو سميان عادي والله جعين طب يا شيخ gaarigaasanu ilaa gaashaamo aniga cabdiqani raaci doonaa halka saraan jecelnahay markasta inaan raacno qaybta labaad ee safarkeena waxaanu ka bilaabi doonaa xili galab ah magaalada loo yaqaano burco caasimadda gobolka togdheer inaga oo gaari dhigadheera ku safri doonaa xagga sarena ka fuushan sii mari doonaa magaalooyin badan iyo sidoo kale tuulooyin badan iyo dhul badan oo bannaan ah siina arki doonaa intaynu gaariga saarannahay dhinacyadeenna dhul green ah iyo dhul daaqsimeed iyo waxyaabo badan oo kala duwan oo intaa sii dheer magacayga adeero axmed farax adeer maxamed farax wuxuu inoo sheegi doonaa meelaha ugu caansan ama ugu waaweyn aan sii mari doono intaan jidka ku jirno maxaa ka mid ah adeero magaalooyinku waa badan yihiin inta ugu waaweyn ee ugu muhiimsan dhexdayna sii marayno ceeg haye harada haye duruqsi degmo duruqsi okay saddexdaas ugu waaweyn qaar yaryar oo aan marayno oo kuna dhow badan insha Allah marka duruqsida afnana waa xadkii de Soomaaliland iyo Ethiopia oo waxay ka sheegayaan magaalo yaryar oo iyaguna iska yaryar intaas laakiin ugu waaweyn insha Allah safarkeena aan ku sii soconaynaa annagoo insha Allah geli doonaa safar dheer oo 10 saacadood ka badan ah imikana saacadii dheeraad soo soconay wixii aan aragno wixii dhaqana wixii hidaa wixii magaalo ah insha Allah dhammaan waan soo gudbin doonaa ماي gaari xagaas weeyaan meesha maxaa ka horeeya meesha bacda ureysa cabdiqani bay hor socda waxa weeyaan saacaddu 12 habeenimo iyo dheeraad gaarigii baan ka degnay halkaan dayaxi baa ka muuqda waxaan dhex maraynaa dhirtaas iyo bocda iyo doogga maasha Allah halkan waa halkan u hoyanay xalayto leh waa cadceed soo bixi aroornimo halkan ayaan ku tukanay salaadii subax waa 6dii aroornimo hadda
xoolihii waxaa loo diyaarinayaa in la sii daayo. sidoo kale halkan waxaa daaqaya geel aad u tiro badan. maadaama ay yar tahay dhirta halkan ku taala, geela looma sameyn xero lagu xareeyo. wuxuu daaqayaa agagaarka reerka. xalay 12 habeenimo ayaan soo gaarnay banka xaguuga gaashaamo. marka waa ban aad iyo aad u qurux badan oo saas kugu siman. halkan booc baa ka baxday. marka boocdu waa geedkan oo reemigu siyaabo badan bay uga faa'iideystaan, laakiin waxa soo qaaday daadka. marka boocdan baa ka baxday meesha. geedkan boocda la ilaa ayaa ka baxay, laakiin banku inta indhaha u qabanaya waa bannaan. arigiina halkan buu daaqayaa dhirtan dhexdooda. maasha allah. arigii baan raacay. reerku halkaa hore ku yaalaa. marka ariga waa la iska soo daayay, isagaa iska daaqaya. dacawo way joogtaa, laakiin waa laga daba imanaya. marka ana arigii baan sii kaxeeyey, dhinacaasaan usii kaxeeyey. marka maasha allah tabaaraka allah. dhulkani dhulkii hore uu ka daaq badan yahay. daaq badan baa ku yaalaa. aniga yaxye cabdiqani saaka waxaan raacnay geelaan raacnay. marka waxaan joognaa bankii xaguuga. halkaan waxaa naga xigtaa xalxalisa, bankii xalxalisa sooma. dhankan waxaa naga xiga dayfoor baa naga xigtaa. halkaana muxuu ah xaaji diriya naga xiga. marka waa jawi aad iyo aad u qurux badan oo dad badan waxaa jira halkan ariga ku raaci jiray oo qurbaha iyo magaalada Hargeysa iyo meelo badan kala jooga. hadda halkan ariga ku raacday, qaybta hoose commentiga noogu soo qor haddii uu jiro qof aad garanaysa halkan ariga ku raaci jiray. u sii sheergare oo tus inuu daawado meesha qurux badan leh. كده صارت توسع يا يومنا صورة يا كورن ده اسماعيل كورتها ما كان لما يروح كورتها ماني هلا صاد حصل له واحد ماني يا ما تروح حرتها ما دقن هذاك حش الدقل اللي يروح حريه دراود ناس كده حرتها تعرف هل بدنا ومن حرانيو oo maxay samaysaa يا maxay samaysaa وحراوه كيف يجي geelaysa la hadhaa كيف لا حرت هذيك كورة يا كورن hay دبنا احنا الان سوق وصلنا منيو حرق كورة نقول يستدي يا oo maadaama geeli la hadhayso oo ay hal نرجع راسنا نرجع بالله حرت ورا كورن hay انما انا قاعد فكرني يعني كورن قاعد واحد waliba tuu cod weyn ها tanatii ugu weyneed waa mise mid waa ka weyn مثلا واخور يرم قارب ما هو قارب عاد مو وين ولا iska dhaxaa انا حول وين قال لا ما عرفت عندي aan fogaanin هاي كورت فوق قاعد كريده يلا وقت قال oo geel laftigiisa kala xog weyn هاي كورت ميد انا كوروين بل وخدا سافر جامت دو بربوريدي كو دالنا كورير فوق ما قرت asana luqunta culays uga dhigin waayo tan rimani waa hadii doonto way lumaysaa ka xogeynta xitaa inay meel kala tagta laga yaabo sooma لين هنا قدي اريد دربي سمعت arkaya الحردي الحردي هذا ما كيف قلت ساس العيله معلم يا
gebigeedu ما جيت كمان يرقى لك سمسة يسوي قيمة كقبل لا سوق قيمة ما نقبل أنا كابرك لما يسوي نوع شاعر لا دقيقة ملا ما كل شيء قال ما كوجد الله حرد ما كوجد الله حرد مار اسكال شو ده سؤال ليه جيت كن جيبي ما هم كويا له نبي ها لبي كبو حملان أيدا أيدا عمل أيو كويا له أيدا لقيه لي أهنا بنان ولا حركة علا وكيل ما شاء الله شرطة حربات نيك هوني ولا أحسن شرطة حربات ولا كريدي سفر كستوى ولا دوبشت يا نيكني وانين ولا شعب شرط بالله هو عاكي يا ما له شيء كذا كذا شيء ولا يا asxaabta waxaan joognaa maanta tuulada loo yaqaano kurta dhagoole marka nimanka dhalinyarta oo koortan qoraya ayaan la kulmay saasaa koorta loo sameeyaa geedka laga sameynayaa waa اللبي lebi geed lebiya اللبي عسوي lebi cas اللبي عسوي اللي هي اللي عادي ولا عسكر midna waa casi midna waa cadi هاي kan waa kii casaanki وكي عساعد بدنا سوي يدي ما marka دلف ولا لا waraawdanis waxay sameynaysaa koortu cud weyn هو عيب بدنا ترى cid badan كيف ولا قرا مار سايس ويدي marka intii lag bay qaadanaysaa in la qoro koorta خلاص انا انت حاجتنا مار وده القريه وده القريه ما بدون ما يعمل waxa qoriyo la gelinaya labada carabna ma iyadu ma lagu geynaa si geed kale كيف كان سoo shariyay ma himir maxaa geed kale himir ama marar bad ama marar sorry laba geed oo kala gaar bay noqonayaan ha labi himir hadda labi laga sameeyay ka waran labi lagu inta gelin waxa laga soo shariyay himir كوري أسأل قلت تسأل قلت جابيه وكأس فعلا تبي قاس أخي هذا ولا ساسوية دي سام قدو قرية معنا له أنت اللي بيقعدن سامك إمس عشان يكون قاعد عمرك سميز مش عندنا معنا بعد نحن قلت تيرو يا الله قلت لك إن دوش لا يقرأ دوش لا فاقت تنا شو بدي تنا حاجة فاقت ويت هذا فاقته تنا شو بي ما شاء الله marka qoriga loo lagu talagalay kaas waxay soo gooyay ka kor ma sha Allah kaas soo goostay kiro ku xidhay waa doos kama walaha ku yeedhay mee waan arkay dadku garanayaan hash marka lanto kale waan kibigeeda habeenkii mar marka waxa dhacday taasi ku yeedhay soo dhageysay walaha waxaan xaga lagu sameeyay marka tumaala tumo hakan magaalada dhexdeeda bas ma qado tumaala ama burcad dhexdeeda taag ma tumaala mid badna noo yimaado tumaala ama joogtay unaga tagay halkan aan joogno iyo magaalada Gaashaamo waxay isku jiraan in loo lugeyn karo 2 saacadood aroortii 9kii subaxnimo ayaan aniga iyo saaxiibkay Cabdiqani Caalin aan lugeynay ilaa iyo magaaladii Gaashaamo 2 saacadood ee naloo sheegay ay nagu qaadanaysay in aan u lugeyn karno magaalada wanaga badatay aroortii baan baxnay habeenkii waxaanu ka nimid 10kii habeenimo halkani waa magaalada Gaashaamo muqaaladan iyo dhismayaashan aad arkisan halkan waa barxadii oo meesha ugu caansan baa filaya magaaladii waa magaaladan ما شاء الله halkan aan ka qadeynay dana dib baan u noqon doonaa dhowr iyo 30 kilomitir ayaan lugeynay maalintaas halkan waxa la yiraahdaa cagafta ama dubad meesha barkisan dad badan oo reer Gaashaamo ay garanayaan halkan kuma daaleydi iska taagana baday
ilaa maanta dhan baan lugeynay gadaal baan ka sheegi doonaa inta kilomitir aan lugeynay wax badan baa oo maalintii labaad ee ugu badneed aan lugeeyay kabradeed waa baqtaday mobilkan yar oo daba ku sii hadheen 20 kilomitir baan nimanka lugeynaa saacadii barno waynu harsan tahay inaan heerkii gaadhno meesha marnaa maxay weeyaan waxaan soo gaadhnay meel la yiraahdo horta waxaan ka nimid markii hore hawdkii waxaan imika soo gaadhnay meeshii markii hore aan socod ka bilownay halkaas waxaa la yiraahdaa dayr fadal baa baan xasanay dayr fadal baa la yiraahdaa waxaan soo tagnay oon ka gudubnay meel la yiraahdo xaaji diiri markii aan dhaafnay gacantooda la dhaaqaysa xaaji diiri markii aan dhaafnay waxaan tagnay gaashaamaan soo noqonay waxaan soo maray meeshii cagaftii ama meeshii ilaa halkan ilaa gaashaamo lugeynay soo lugeynay imika waxaan tegaynaa kurta buryare meel la yiraahdo banka xaguugan weeyaan wuxuu bankiga maraya banka xaguugan isku mid marka laga sii baxay laga marayo xalis marka la marayo meel u dhow weeyaan marka ku soconaa heesa badan baad ku maqasheen banka xaliseed ku maqasheen kana waa kii xaguuga insha Allah isu marayna heesii maxaa kamid ahaa waree sida ay xayaab liyo banaanada xaliseed muuqaalka halkaasaan ku joojin doonaa waa inoo mar kale iyo muuqaal kale insha Allah channelka kusoo biro subscribe deh asxaabtaada u shargaree dadka la wadaag like-ta iyo share-ta israaci assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh